Soomaaliya aad u xasuustaa aaday yani maaragtay ay ii qiiro gelisaa marka arko qof Soomaali ah walaalkii ah oo dhibaato lagu sameeyay ama gabar walaashay ah Soomaaliyeed oo dhibaato lagu sameeyay marka arko aad u qiirooda waayo madaxweynaha aadan cad Allah u naxariisto wadanka ka soo taliyay madaxnimo Soomaaliya ugu horeeyay aan dhiig wadaagna saasay tahay mar walba asaga yani maaragtay ii sheeg si gooni ah qodbadiisa hada dhageysatid mar walba waxa waaye maskaxdaada wixii ku jiro oo Soomaali nacayb waxa waaye ka baxaya marka Soomaaliya midka ugu sareeyo iyo midka ugu hooseeyo Soomaalinimada ka badan sifada qabiilka ma ahan inay ka xoog badato sifada Soomaalinimada inay ka xoog badato ma ahan nabaddu waa inay noqotaa targetka koowaad ee Soomaalinimo waa inay noqotaa adigoo mas'uul ah hadii aad wax xalaysid xasuusnow bari ka maalin dadka shacabka ee dagaalka aad ku hogaaminaysid adigana bari ka maalin inuu kula gali karaan adigoo mas'uul ah sameynaysa yani maaragtay abaabul qabiil ah sameynaysa marka qabiilkan waxa la dhihi karaa waa qaran dumis la dhihi karaa Soomaalinimada mar walba waxa waa lagu dadaalo laakiin yaa lagu dadaalin sifo qabiil yaa lagu dadaalin dalka qabiil ma anfacayo laakiin waxa anfacayso nabad iyo Soomaalinimo iyo horumar iyo wadajir anfacayo marka dhamaan madaxda Soomaaliyeed waxaan leeyahay xilka ay hayaan waa inay ka run sheegaan gobolka Hiiraan wuxuu soo maray abaaro soo maray biyo baxooyin soo maray intaas lama arkayo dadka in loo gargaara la rabaa laakiin ha ugu gargaarin sifo qabiil ha ugu gargaarin ugu gargaar sifo Soomaalinimo ugu gargaar laakiin ha ugu gargaarin sifo qabiil ha ugu gargaarin ninka xildhibaanka ah ee gobolka Hiiraan mar walba yani waxaan leeyahay dadkaaga iyo dalkaaga wax u qabo laakiin ha ugu qabanin sifo qabiil ha ugu qabanin waxa arkay xildhibaano iyo ciidamo isbiirsaday oo calanka Hirshabeelle jeexjeexaya arkay intee u socota adiga Soomaaliya tahay ninkaana Soomaali waay maxaa ka faa'iiday dagaal maxaa ka faa'iiday nabadda mar walba yani maaragtay waa ina qayb ka wada ahaataan gobolka Hiiraan sidii loogu idil yahay waa in loo wada midooba Hiiraan marka waxa la dhihi karaa meesha ugu dhaqaalaha badan waa Soomaaliya markii la dhaho xagga dalagga markii la dhaho xagga dhaqaalaha markii la dhaho Hiiraan meesha ugu dhaqaalaha badan waa saasay tahayna meesha ugu dhibka badan waa qabiilaadka dego mar walba waxaan leeyahay Soomaalinimadu ha idinka badnaataan leeyahay laakiin aysan idinka badnaanin qabiilku yuusan idin badnaanin mar walba waa inay ku faantaan Soomaaliya waa inay ku faantaan Soomaalinimadu waa sharaf waa filaa inaa maaragtay codkayga dhageysan doontaan dhamaan ummadda Soomaaliyeed waxa uu baaqayaa waxaan leeyahay sharafta Soomaalinimada ha la wada ilaaliyo laakiin yaa la ilaalinin sharafta qabiilka yaa la ilaalinin mar walba taasaan leeyahay wadankuna sharci leeyahay kala dambeyn leeyahay madaxu leeyahay saa horay kugu sheegay qofka shacabka ah oo Soomaaliga ah yaan loo horkicin sifo qabiil yaan loo horkicin qabiilku waa qaran dumis waa dhaqaale burburis waa dal dumis mar walba waxaan leeyahay gobolka Hiiraan si gooni ah waxaan leeyahay ugu baaqayaa mar kastaba aan leeyahay waa inaa ka fogaataan qabiilka waa inaa ka fogaataan ee u gudubtaan qaran waa inaa u gudubtaan mar walba taasaan yani maaragtay aan Hiiraan ugu baaqayaa mar kastaba taasaan leeyahay Hiiraan dalka Hiiraan waa la wada degaa gobolka Hirshabeelle waa meel loo wada idil yahay qabiilaad badan dego qayb waa inay ka wada ahaadaan wax qabad dalkaagu mar walba marka waxa waa inuu ku noqdaa muhiimadda koobaad waa inaad dalkaaga saartaa dadkaagana ugu adeegtid si
ka madax bannaan qabiil ka madax bannaan waa inaad ugu adeegtaa. waxaa arkayay xildhibaano ka tirsan golaha shacab ka tirsan oo mar walbaba ku guubaabinaya qabiil ku guubaabinayo sifo yacni maaragtay baraarujin qabiil ku baraarujinaya arkayay. dowladuna waa wada daawanaysaa, dadweynaha shacabkana way daawanayaan. ninkii xildhibaanka hadduu saa sameeyey maxaa laga dheehan karaa dadka shacabka ah? maxaa laga dheehan karaa isdhihi kartaan? waxaa laga dheehan karaa dastuur qabanayo qofka shacabka maba jiraba. hadduu ninka si beri ka maalin lagugu daydo jeelka kaa dambeeyo ay kuugu daydaan mujtamaca aa usoo bandhigtid wax wanaagsan oo ay kaa dhagaysan karaan aa usoo bandhigtid. ma ahan dalka inaa kala xigsatid, ma ahan dadka inaa kala xigsatid, ma ahan. dowladdu waa mid, calankuna waa mid, soomaalinimaduna waa mid. laakiin yaan loo isticmaalin sifo ku dheehan qabiil, yaan loo isticmaalin. ani mar walba waxaan leeyahay Soomaaliya ha noolaataan leeyahay. soomaalinimadu waa sharaf, mar walbaba aa ku faano. waay maanta haddii dalkaaga meel ka fog aad joogtid qof kale oo ajnabi ah wax gaarsiisid waxaa lagu leeyahay qof Soomaaliya waxaa sameeya leeyahay. laakiin la dhihi maayo qabiil hebel ah wax sameeyay iyo qabiil heblaaya wax sameeyay. dalkaaga dadkaaga mar walbaba inaad adeegtid, ugu adeegtid si daacad ah, ugu adeegtid si ay ka fogtahay inaad ugu adeegtid qabiil ka fog inaad ugu adeegtid. mar walbaba waxaa aad u wanaagsan inaad ka run sheegtid xilka lagu dhiibay, inaad mar walba ka run sheegtid dadkaagii dalkaagana ugu adeegtid si oo ka fog qabiil ka fogna ugu adeegtid. madaxnimadu way dhammaanee laakiin dalkeenu ma dhammaanayo. soomaalinimadu ma dhammaanayso laakiin way dhammaanaysaa, xilku wuu dhammaanaa. mar walba waxaan leeyahay madaxda Soomaaliyeed dalkiina iyo dadkiina ugu adeega sifo wanaagsan ugu adeega. mar walbaba sharaftaada inaad ilaashatid waa shay muhiim ah waaye. dhammaan marka waxaan leeyahay Soomaaliya waxaan leeyahay ha noolaato. soomaalinimadu waxaa waaye sharaf aan dadka dheernahay waaye. Soomaaliya aad u jeclahay. soomaalinimada waxaa waaye shay muhiim ah waaye, aad u jeclahay Soomaaliya. dadka waxaan leeyahay siyaasiyiinta ah yaan loo isticmaalin dowladda Soomaaliya iyo sifada soomaalinimada, yaan loo isticmaalin sifo qabiil, yaan loo isticmaalin. Soomaaliya waxay ka imaatay meel fog laga keenay. madax kala duwan soo martay oo qaybo kala duwan soo martay. waxaa moodaa geyga maanta markii la joogo sifadii soomaalinimada inay ka xoog badatay